إنا لله وإنا إليه راجعون كلان كان لوغو دعينيي مرحوم ضيح إيمان حسن جيرو oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dileen agagaarka daarta Saybiyaano ee degmada Hodan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan oo tacsi iyo duca loogu sameeyay isla markaana cadaalad loogu raadinayay marxuum Dayax Iimaan Xasan Jiiro ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan kulanka ayaa waxa ka hadlay ehelada iyo asxaabta marxuumka isku jaamacadda ahaayeen iyagoo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in cadaaladda la horgeeyo gacan ku dhiglihii Dayax gacan ka xaqdaran baa dishay mustaqbalka ifahayu ahaa nin wuxuu ahaa wax la soo baray lagu soo tiiliya tacabeelay oran mayna muxuu u dhintay qof walba waa dhimanaya kullu naftal daaqatal mawd laakiin waxaan codsanaynaa dawladda madaxweynaha Maxamed Xasan Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre labada gole iyo maxkamadaha iyo kulli inta ay qusayso in cadaalad aan helno waxaan ognahay in ninka la haayo oo qofkii dilay waxaan rabnaa in qofkaas si cadaalad ah oo muuqato in muxuu ahaayeen cadaalad loo soo horkeeno waxa kaliya uu awoodno maanta waa inaan u duceyno iyo in qofkii dhibaatada gaarsiiyay cadaalad loo horkeeno dayax maanta ma haysano laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo ilaahayna jannatul firdaws ka waraabiyo Cabdicasiis Iimaan Xasan Maxamed Iimaan Xasan Xasan Iimaan Xasan Cabdirisaaq Iimaan Xasan oo dhamaantood la dhashay Dayax Iimaan Xasan ayaa madaxda ugu sareysa dalka ka codsaday in cadaaladda la mariyo gacan ku dhiglihii dilay walaalkood Jiiro Ilaahay u naxariisto waxaan nahay Maxamed Iimaan Xasan Jiiro walaalkiis ka yar marxuumka hami weyn ayuu lahaay hami saa'id weyn ayuu lahaay wuxuu haminaya madaxda dalka soo kacaysa inuu noqdo walaalkayga Dayax Iimaan Xasan Jiiro Ilaahay u naxariisto wax kale ma dhigi karno taasoo aad dawladda ka doonayno dawladda federaalka Soomaaliya cadaaladaas oo ah walaalkay Dayax in lagu dilay hubka dawladda ee disha dawladda taasoo aan ka doonayno dawladda cadaaladaas oo in loo waafajiyo askariga kamid ah dawladda oo dilay walaalkay Dayax Iimaan Xasan Jiiro إنا لله وإنا إليه راجعون مرحومكي ولالكيس كوينا ودنتي Dayax Iimaan Xasan Jiiro walaalkiis كوين Cabdicasiis Iimaan Xasan Jiiro أنا marka dawladdu waxa ka dalbanaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre in cadaaladda naga hor keeno ninkii dilay walaalkay oo gacan ka xaqdaran ku dishay asoo waxba ka bixin magaalada iska dhex maray asagoo waliba si ku talagal iyo kas u dilay qof bin aadan waa taqa maanta walaalka haduu dilay sida aan noqonaysto qeyrada ku qabsanayso waa ogtahay marka waxa ka codsanaya dawladda ku meel gaarka ninkii walaalkay dilay in asagana xanuunkii uu maro uu walaalkay marsiiyay maanta wuxuu ahaa nin u soo baxay wadanka madaxdii berrito noqon lahaa wuxuu ku haminaa inuu madaxdii berrito noqdo waxaan horta iska bar magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Iimaan Xasan marxuumka dhintay Dayax Iimaan Xasan waxaan ahay walaalkiis ka yar waxaan halkan isugu imaanay inaan u duceyno oo tacsiyeeno cadaaladna dawladda aan uga dalbano walaalkeen wuxuu ahaa nin mustaqbal leh hami badan leh kuna haminayo inuu noqdo madaxda dalka bari wuxuuna ahaa nin hami badan naxariis badan gargaar badan ummadda shacabka dadka danyarta kulli u gargaara ayuu ahaa wuxuuna ahaa nin wax soo bartay oo 4 sano jaamacad soo dhiganayay waxa dishay gacan ka xaqdaran waliba si arxan dara ah laamiga dhexdiisa loogu dilay askariga dileen wuxuu ku tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya askarta dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ninkii walaalkay dilay in cadaaladda la hor keeno sharciga islaamka wuxuu qabanaa naloo mariyo Farax Soofe oo ah hooyada dhashay marxuum Dayax Iimaan Xasan oo wajigeeda ka muuqdo murugo aad u weyn ayaa dawladda Soomaaliya ka codsatay in cadaaladda la hor keeno wiilkeedii cidii dishay magacaygu waa Farax Soofe Beegsi waxaan ka codsanayaa dawladda sharafta leh wiilkaygii aan ku soo tiriyo tacabeelay 20 sano aan wax soo barayay ee aan islaha markuu soo qalin jabiyay aad ku manaafacadsatid in dawladdu ay hubkii ay dadka wiilkaygii ay ku dileen oo ay hubkii nagula soo jeesteen waxaan ka codsanayaa madaxweyne Farmaajo inuu wiilkayga ninkii dilay wax laga qabto
oo halkaas dadka hortiisa wax looga qabto wiilkaygii aan ku tiriyo tacabeelay intaasoo sano aan soo korinayay maalintii aan isiri waad ku munaafacaadsanaysa ayaa hubkii dowladda lagu dilay wiilkaygii allaha u naxariisto waxaan ka codsanayaa in ninkii dilay wiilkayga tiirka la soo taaga isagana hortayda lagu dilo oo uu farmaajo wax ka qabto habeenkii la dooranayay waa tii uu ku dhaartay inuu dadka shacabka wax u qabanayay allaha u naxariistay marxuum Dayax Iimaan Xasan ayaa jimcihii aynu soo dhaafnay oo ay taariikhdu ahayd 21 Sebtembar ayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dileen magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Muqdisho.